culus oo ka qarxay Ereygaabo gobolka Sanaag ayaa sii socda u sii ballaaranaya dhimasho badan iyo dhaawac badanna kala soo kulmay. Ciidanka Muuse Biixi oo markaa ayada ku duulay meesha ayada ayaa la sheegayaa inay jab weyn ka soo gaartay oo midba meel uu ka baxsaday kadib markay dadkii meesha deegaanka ay isku difaaceen si la yaab leh oo markaa ayada aynu u maleynaynin inay markaa ay iskaga difaaci karaan. Ciidankan oo dhinaca kale ee Sool muddo ay ka dagaalamay ayaa damcay inuu meeshana dagaal ka galo kaas oo ku fashilmay kadibna dhimasho badan ee meesha ka soo gaartay ilaa haddana tiro aad u badan lagu sheegayo inay ka dhimatay ciidankii Somaliland kastoo dhinaca kaleba dhimasho ay ka laftooda ka soo gaartay laakiin sida wararka nagu soo gaarayaan inay Muuse Biixi ciidankii uu meesha u soo dirsaday inay jab weyn soo gaartay oo ay dhimashada u badan yihiin iyo ciidan badan oo ay ka laftooda gacanta looga dhigay sida la sheegayo. Dagaalkan oo ilaa shalay in muddo ay socday ilaa haddana sida la sheegayo uu socdo ayaa markaa wararka nagu soo gaarayaan inuu ka soo bilaawday dhinacaas iyo ciidankii Muuse Biixi oo damceen inay markaa dhinacaas dagaal ka soo bilaabaan maadaama dhinaca Og ay u suurtageli waasay oo dagaalka Og ay ku fashilmeen ilaa haddana cabsi weyn ay ka qabaan dhinaca inay ka soo galaan maadaama dagaalkan uu in muddo ay socday. Dhimashadii dhaawac badanna labada dhinac iskaga imaadeen ayaa la sheegayaa in ay gadaal u carareen ciidankii Muuse Biixi oo ay baxsad ku tageen markaa ayada dhulkoodii ayna markaa ayada sida la sheegayana ay jab weyn meesha uu ka soo gaaray. Waan ognahay in muddo inuu soo muuqanin sabaraha bulshada uu ka soo muuqanin sidii uu ballantu u qaaday ka hore inuu dagaalkii Og markii laga soo baxsaday Gooja Cadde oo markaa ayada ciidan badan Og uu iskugu keenay kadibna uu u ballan qaaday ummadda Somaliland inuu xuduudtiisa mar walba uu u dagaalamayo uuna kow ka dheheynin qof kasta oo ku soo xadgudbi karo inuu ku soo duulo uuna ku dagaalamo markaa ayada dhulkiisii laakiin sida hadda ay wararku u egyihiin inuu cabsi weyn ay soo gashay oo markaa ayada Muuse Biixi ciidankiisii meesha Og la soo tubayo laakiin ay dhinaca kalena ay Gooja Cadde yihiin ciidankii markaa ayada ka bixiyay Muuse Biixi iyo ciidankiisii markaa ayada meesha ku qabteen ilaa hadda meesha inay ku sugan yihiin oo ay sugayaan qof kasta oo dagaal soo qaadi karo taasoo ku kaliftay Muuse Biixi cabsi badan iyo irdhe badan inuu ka qaado dhinaca Khaatumo laakiin wuxuu isku dayay inuu dhinaca kale hadda uu ka dagaalamo oo uu meesha ayada uu ka galo laakiin wixii ka soo raacay asagaba ilaa caawa ilaa maanta wuu fajacsan yahay meel kasta oo tilaabo u qaado dagaal kasta oo uu qaado wuu ku fashilmaya. Biixi oo dagaalo badan soo galay oo ilaa hadda dagaalka ku jira oo maalinba meel duqeynaya maalinba meel farfareynayo ayaa jab weyn soo gaaraya mar kasta oo tilaabo u qaado kaas oo madaxweynaadkiisa hadda uu sii dhamaanayo ayaa ummadda Soomaaliyeed misna ummadda Somaliland ayna dhahday inuu iska gadan rabaa oo markaa ayada uu sheego inuu markaa ummadiisa u dagaalamayo misna ummadiisii iyo Somaliland mar walba uu dhabar ku wato laakiin inuu ku fashilmayo ayaa u egtahay maalin kasta tilaabada kasta uu qaado uu fashilmayo hadda uu ku fashilmay Sool dagaal uu ku qaaday 9 bilood ka hore ilaa hadda ka guuleysteen ugu dambeyn oo maanta inay isku dhawaaqaan oo maanta gobol dhinac u taagan ay iska dhigaan ayay u egtahay masane ayba tahayba waadaama uu hadda markaa ayada madaxda ugu sareysay Khaatumo State ay maanta ku sugan yihiin madda Soomaaliya Muqdisho kuwaas oo markaa ayada ay sugayaan sidii markaa ayada loo caleema saari lahaa maanta ay u noqon lahayd SSC Khaatumo gobol gaar isku istaago oo markaa ayada maamulkiisii meel kasto iyo xigtiisi inay dhista markaas ayadana way ku adkaani Somaliland inay tilaabo ku soo qaado dhinacaas oo xuduud dambe iyo dhul dambe ay ka hadasho maadaama ay markaa ayada Khaatumo noqonayso dawlad iyo markaa ayada waxay noqonaysaa laba dawladood oo isdagaalayaan markaa wayna cabsi weyn bay soo jeedi kartaa ayagoo shicib iska inay kula dagaalamaan oo maanta ka reeyaan adigoo dawladda 30 sano wixii iyo in ka badan wixii aad aruurinayso oo ciidan ahaa masana hub ahaa maanta adii lagaaga reeyay oo maanta intaas oo ciidan laga qabtay ayadoo dawladda inuu soo dhiiran garin masana uu isku soo istaagin karin ayay u muuqataa Muuse Biixi dhinacaas oo maanta dagaal uu ka galayna wuu ku soo fashilmay oo ciidankiisii sidii noo muuqato sidii wararka nagu soo gaarayaan inay meesha lagu xasuuqay oo ciidan badan meesha looga laayay ayaa noo sheegaya mase wararka nagu soo gaarayaan marka waxay noqotay ciidankii Somaliland inuu meel kasta oo uu galo masana dagaal kasta oo uu qaado inuu ku fashilmo oona looga reeyo maadaama uu gacantii marka ayada xaq daran asaga uu yahay oo mar walba wixii duqduqeeyo masana dagaalihii marka ayada meel ka bilaabo asaga uu yahay oo dagaal weyn oo uu galaybo
kii ugu horreeyay lagu soo fashiray maanta oo dagaal kale uu qaado oo beel uu ku qaado meel degan ay haddana mar labaad looga soo reeyay oo ciidankii meeshii lagu soo xasuuqay wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh